kulamadan oo ilaa xalay ka soconaya magaalada Kismaayo gaar ahaan guriga martida ee dowlad goboleedka Jubbaland ee magaalada Kismaayo ayaa waxa ay si isdaba joog uga soconayeen aqalka martida ee dowlad goboleedka Jubbaland. kulamadii ugu horeeyay ayaa ilaa xalay waxa yeelanayay gudoomiyaha aqalka sare ee dalka iyo madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland kaas oo ay albaabada u xirnaayeen isla mar ahaantaana aan logeen waxyaabaha rasmiga ah ee lagu wada hadlay. kadib subaxnimadii hore ee saaka ayaa gudoomiyaha aqalka sare ee dalka Cabdi Xaashi Cabdullaahi iyo xubno ka tirsan golaha baarlamaanka aqalka sare ee dalka waxa ay kulamo saacado badan qaatay ee la yeesheen madaxweyne ku-xigeenka koowaad ee dowlad goboleedka Jubbaland, xubno ka tirsan labada gole ee baarlamaanka iyo golaha wasiirada ee dowlad goboleedka Jubbaland kaasoo inta badan diiradda lagu saarayay kala aragti duwanaanshiyaha u dhaxeeya dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada dalka gaar ahaan dowlad goboleedka Jubbaland. ugu horeyn kulankaasi waxaa hadal kooban ka soo jeediyay madaxweyne ku-xigeenka koowaad ee dowlad goboleedka Jubbaland Maxamuud Sayid Aadan waxaana uu faahfaahin ka bixiyay marxaladihii kala duwanaa ee laga soo maray arrimaha la xiriira kala aragti duwanaanshiyaha dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada dalka. halkan shir baa ka dhacay dowlad goboleedyada iskugu yimaadeen war baa laga soo saaray warkaas oo nuxurkiisu ahaa wax baan isku qabanay madaxda dalka hogaaminayso iyo dowlad goboleedyada xubnaha ka kadibna waxaan u baahanahay cid saddexaad oo nala aragto wixii aan isku qabanay in la helaan u baahanahay ayay xigmadu ahayd. kadib aqalkiina sharafta leh ee matalo go'aan baad u firisateen wafti baad noo soo dirteen waftiga waxay noola yimaadeen dukumiinti su'aalo ku qoran yihiin oo ah maxaad isku qabateen oo isla fahmi waa su'aalahaas oo dhammaantood ahaa su'aalihii aan u baahnayn in la weydiiyo waa ka soo jawaabnay waa idinku soo celinay waxaana aqbalnay inaad adinka dhexdhexaadin ka samaysaan hay'adaha dawladda oo isqabsaday. halkaas ay noo joogtay kadib intaad ka marteen iyo wararka soo saarteen waa la soconnay haddii aad noo timaadeen annaga waxaan noola timaadeen waa soo dhaweynaynaa adinkaana noo sheegayo kadibna golayaasha halkaan fadhiyo wixii su'aalo ah oo ay arrintaas idinka weydiinayaan soo dhawaada. Cabdi Xaashi Cabdullaahi gudoomiyaha aqalka sare ee dalka ayaa dhankiisa goobta hadal kooban ka soo jeediyay arrintii dhamaystirkeedii si aynu u dhaqaajino bal inaan dowlad goboleedyada nimaadno inkasta oo kolkii qoraalkaas soo baxay waa idiin soo dirnay jawaab waafiyana waad ka soo bixiseen oo aad sheegteen inaad ogoshihiin marka arrintaas si loo dhammaystiro ayay noqotay inaan idinka soo bilowno laakiin fikirka iyagu uu yahay inaan dowlad goboleedyadoo dhan aan marno aan soo ururino oo markaa ay noqoto in madaxda dowlad goboleedyada iyo madaxda dowladda dhexe sidii la isugu keeni lahaa ee arrintaa loo dhammaystiri lahaa ayay noqotay inaan idiin nimaado. waxaan ku faraxsannahay yacni inaad hadda labadii aqal waa xukuumaddii iyo golihii shacabka aad maanta halka ku dhan tihiin oo ay tahay inaynu isweydiino waxaanu rabnaa wax kale ma aha. dalkeennu wuxuu u baahan yahay nabad buu u baahan yahay wuxuu u baahan yahay midnimo u baahan yahay. inkastoo shirarku ay saacado badan qaateen ayaa haddana markii kulankan uu soo gabagaboobay kadib waxaa saxaafadda uga warbixiyey waxyaabaha rasmiga ah ee laga wada hadlay wasiirka madaxtooyada ee dowlad goboleedka Jubbaland waxaana uu yiri waa ku mahadsan yihiin aqalka sare isku dayga ama isu xilqaanka ay isu xilqaameen inay ka shaqeeyaan khilaafkii soo kala dhexgalay dowlad goboleedyada iyo xukuumadda federaalka. dabcan shalay markay yimaadeen ilaa maantaydan hadda aan joogno kulamo ayay galeen kulamo ay la qaateen maaragtay madaxda dowlad goboleedka ugu dambeyntiina hadda maantay markii ugu dambeeyay hadda wuxuu ku saabsanaa iyagoo la kulmay labada gole iyo siyaasiyiinta joogta
dowlad goboleedka Jubbaland magaalada caasimadda ah ee Kismaayo waxaan ku saabsan yahay kulankan wuxuu ku saabsanaa gogoldhigii wada hadalka qaabkii loo geli lahaa wada hadalka iyo waxaan ku yiraahdaa sidii loo soo afjari lahaa khilaafka carqaladeeyay hanaano socodkii dowladnimada Soomaaliya. Aadan Maxamed Salaad, raadiyaha telefishinka qaranka magaalada Kismaayo.